waxaan ku nimidnay kormeer goobihii aan u astaynay inay ka bilaabato kala raynta mootobajaajka A iyo B annagoo ka duulayno go'aankii golaha wasiirada ay soo saareen iyo awaamirtii aan soo saarnay ee gobolka Banaadir fulinteeda uu lahaa nasiib wanaag maanta si toos ah ayay u bilaabatay barnaamijka asiga ahay oo 24kii aan ku dhawaaqnay uu bilowday bajaajleyda waxaan uga mahad celinaynaa si ay ugu hoggaansameen awaamirtii aan bixinay waa kan safka dheer ay ugu jiraan hadda fulintii awaamirta ayada ahayd wax alla iyo wixii soo kordhana waan isla joognaa waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yiraahdo inaan boobsiino oo sida ay maaragtay ay ku fulayso ayagana culays kuga yaraanayo inaan fududayno waxyaabo badan oo la sheegayo wararka suuqa ahaa hortooda ayay hadda ka qirteen $150 nagala qaadaa iyo xaggaasay ka dhacday iyo waxyaabahaasay aaminsanaayeen maanta waxay ogaadeen xaqiiqadii $150 beenay noqotay $100 beenay noqotay $50 beenay noqotay $30 iyo $36 in laga qaadayo ayaga hadda afkooda ka qiray annaguna mar walba waxaan ku dadaalaynay inaan koostiga uga baxayo inaan aad iyo aad u yarayno si maaragtay aan isu qaadanno taasna maanta waxay keentay inaan isqaadanno wixii kaloo dhimanna haddii ilaa yiraahdo waqtigeeda ayaan ka wada hadli doonnaa hawshaanina dadka gacanta ku hayo maamulka gacanta ku hayo oo dawladda hoose ay xil saartay ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalkii juhdiga ay bixiyeen waxaana rajaynaynaa in la sii laabo bajaajleyduna waa ku mahadsan yihiin inta isdhibayso oo maaragtay ka fikirayso inay arqaladeeyaan howlaha socdana hay-adaha amniga waxay ka qaadan doonaan waxa uga aadan haddii ilaa yiraahdo inta kalena waxaan rajaynaynaa inay shaqadu si wanaagsan noogu bilaabato nooguna dhammaato insha allahu